samaysanayaan. Midda labaadna waxa waa lagu dhoofinayaa dalka waa laga wadaa waxa lagu geeynaa Soomaaliyeedna qurbaha iska jecel ama dibadda lagu geeynaa qaat lacagta bale qaate nin lagu xukumaa horta dhib waaye dhoofna lagu xukumayna waa dhibaato maxaase necbantaa in lagu siiya igu tiri horta adduunku waxaan u necbanahay malay ama kalluunsa u taqaanin in la siiyo weligaana ha igu qaldan asxaabtana igu qaldan su-aasha xigta oo waxaa igu tiri maxaa jeceshahay in lagu dhaho السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام دماء ولا لها كحيران كنا الكي فرطون علي ملك استعدون كجوكتين محاذير رجينا خير عافيمات فرحتنا كله لاتين إن شاء الله حنيها يا برنامج شرق قراحة قبر صاحبي دائما ولا شيء كمبالة جوكتو كوين كفاح أربعين حوجات دور سؤال أويدي هدو إلهي نفتنا وقسمه إلى صعدها واقو سلامي كوين كفاح ما كوركوسو دو جنالكيga fartuun cali maxaa kale aad ku dhahay caawade ku cusubana ku dhahay barnaamijka ila qaraaxayso وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا شيء وانكو دواهي فرطون علي يا أصحابتي وان سلامي يعني جو كوين كفاح aad baa ugu faraxsanahay wareysiga ay ila yeelatay su'aalaha ay weydiisaneen oo ku faraxsanahay aadi aada u mahadsantahay kuwinka faax su-aasha koowaad horta ku weydiinaya waxay tahay maxaa kugu dhaliyay inaad noqotid youtuber ama aad kusoo biirtid social mediaha walaashay su-aashii koowaad aan kaaga jawaabo waxay igu tiri maxaa kugu kalifay inaad youtuber aad noqoto waxay igu kalifay aan kuu sheego 3 shay baa igu kaliftay inaan wacyigelin aan ka sameeyo inaan maxal lahaa dadka aan kasoo dhex muuqdo inaan lacag aan ka sameeyo su-aashaas inaan ku qanacdayna rajeynaa insha Allah fartuun cali iyo asxaabteeda kuwin kufaax horta ani adiga isku cusbeen wax badan waxaan iska socon jiray waa ogeed waxaan iska naqaan Instagram-ka iyo Facebook-ka dad badan oo ku taxan qaybahaas ku leedahay social media-ha sida Instagram-ka iyo Facebook-ka waxa uu sheegay sorry gaba ahay talooyin badan ay siin jirtay gabdhaha waxa aad ugu ula taliyay gabdhaha oo barnaamijyo badan ila taliyay meesha ka soo jeedin jirtay haddana waxaan noqotay qof youtuber oo YouTube leh talo badan hadda naftirkeeda ku jirto way jirtaa aad siisay YouTube-kaaga adiga maxaa rabtaa hadda inaad ugu soo kordhisid maxaa u sheegi rabtaa maxaa sanad fikirooda naga gadi rabtaa maadaama aad hadda isticmaalaysid YouTube oo ka sii casrisan kana sii gudbin og Facebook iyo Instagram-ka aad hore ugu dadka ugu la talin jirtay walaashay fartuun su-aashii labaad ay igu tiri waxay tahay maxaa bulshada oo kusoo kordhin kartaa maadaama aad tahay youtuber kow waxaan kusoo kordhin karaa inaan wacyigeliyo nolosha negative-ka ah aan jeclahay mar walbo nolosha inay positive ee noqoto waa ila fahanteena umaleynaa su-aasheena xigta insha Allah aad iyo aad aan ku dhahay si fiican u fahnay su-aasheedii kale waxay tahay kooyinka faax waxaa lagu dhahay saddex door lagu dooransiinaya saddexdaas mid walba adiga khiyaarigaaga kuma samaysanaysid oo lagu maamulaya midda koowaad waxay tahay lacag lagu siinaa lacagta hadii lagu siiyo adiga saad rabtid uma isticmaali kartid lacagtaas waa lagula maamulanayaa sidii la rabaa lagaala samaysanaya midda labaadna waxa waa lagu dhoofinayaa dalka waa laga wadaa waxa lagu geeynaa Soomaaliyeedna qurbaha iska jecel ama dibadda lagu geeynaa midda saddexaadna waxa waaye guur aad raali ka ahayn maadaama adiga hadda guur aad raali ka ahayn aan lagu darin oo hore lagu dhagax dhigtay marka waxa ay sheegtaa hadda marka kee kala dooran lahayd ifan adiga oo ah kuwin kifaax oo gabar ah oo maanta to aan xaas ahayn saddex khiyaar hadii lagu dooransiyo kee qaadan lahayd adiga walaashay fartuun cali su-aashii afraad waxay ku dhahday haddii lagu dhaho 3 shay mid dooro saddexdaasna xor uma tiida ay ku tiri waxay ku tiri lacag iyo nin iyo dhoof nin waxaaba la qaatay lacagtaaba la qaatay nin lagu xukumaa horta dhib waaye dhoofna lagu xukumayna waa dhibaato marka ani lacagtan dooro lahaa at least lacagta lagu xukumo marna lagu siiyo marna laga qaato su-aasha afraad ina haleesheena umaleynaa kooyinka faax yaanu kugu badin su'aalaha
sorry inkastoo caawa uu hargab ihaayo haddana waa lagu socodsiinaa dhib ma lahan waxaa ii sheegtaa barnaamijka ila qaraaxaysaa oo dhaasidiisa umogd ma ahan barnaamij oo su-aalo caadi iyo maxaa dhihi su-aalo waaweyn lagugu weydiinayo adina waa ogtahay waxaa ii sheegtaa kuwiinka faaxay maxaa adduunka ugu jecesha horta saada biniaadanba adig waxa adduunka ugu jeceshahay in lagu dhaho iyo waxaad ugu necib tahay in lagu siiyo maxay tahay walaashay fartuun cali waxay igu dhahday su-aashii xigta oo su-aasha saddexaad waxay igu tiri maxaa jeceshahay in lagu dhaho maxaase necban tahay in lagu siiyaa igu tiri horta adduunku waxaan u necbanahay malaay ama kaloonsa u taqaanin in la siiyo weligaana ha igu qaldin asxaabtana igu qaldin su-aasha xigta oo waxay igu tiri maxaa jeceshahay in lagu dhaho adduunku waxaan u jeclahay in la dhaho umu ikhlaas wax kale aan jeclahay oo kale ma jiro su-aashan aan kaaga jawaabay umalaynaa maasha allah marka waxaan ku weydiina kuwiinka faaxay dad baa waxay dhahaan qof oo gabdhaxay dadka qaad waxay aaminsan yihiin inay qof hooyo ah oo xaas oo shaqaysato ayna youtube-na isticmaali karin hadda maadaama adiga aad tahay gabar maama maasha allah oo xaas aana shaqaysid youtube-na aad isticmaashid see kugu suurta gashay inaad isku qabatid intaasoo howlo ah ma dadku caawinayo kala jiro mase adiga keliga ayaa kartidaada isku maamulaysa haddii si kasta lagu caawinayo xataa ay jirto waa ogaha qofka si kasta si lagu caawiyo ama wax kasta lagula sameeyo ma jirto qof oo gurigiisa qof kale u dhaafaya ama maxaa la dhihi jiray oo asaga keligiis inuu maamulo loo maamulo bis oo garanay marka dadka qaladkaas fahansan oo qof inuuna shaqaysan karin youtube-una ka shaqayn karin guriguna ka shaqayn karin shaqo kalena uusan aadi karin haddana axaas tahay dadka fikradaas qaladkaa aaminsan maxaad ku dhihi lahayd maxaad ku dhiirigelin lahayd gabdhaha aaminsan bes in hal wax bes lagu koobnaado oonan howl kale lagu dari karin hadday xaas noqotay aad waxbarasho ku dari karin shaqo aada ku dari karin aada ku dari karin maxaa la dhahaa youtube ama wax kaleeto isticmaasho dad aad ku dhiirigelin karto aada samayn karin bes aaminsan haddaa xaas noqotid bes gurigaada ku eko dadka noocaas aaminsan gabar iyo wiil waxay doonaan ba ahadaane dadka noocaas maxaad kula talin lahayd adiga se u maamushaa hawsha gurigaaga iyo nolosha adiga shaqadaas ay isugu wadataa walaashay su-aasha xigta oo shanaad aan kaaga jawaabo waxay igu tiri dadka qaar baa aaminsan haddaad guri yeelato ma shaqayn kartid youtube iyo reer sidee isugu dartaa maadaama aad tahay hooyo shaqayso dadka aaminsan fikrad qalad bay haystaan kow waa inaad siisaa shaqada guriga muhiim ah waa inaa kow guriga shaqada aad siisaa kadib wixii soo hara aa youtube-ka aa siisaa waqti aa u yeelataa hooyana waa ahay maadaama aniga aan iska hadlahayo hooyana waa ahay gurina waan ka shaqeeyaa ciyaalkana waqti waan siiyaa xaajigana waqti baan siiyaa youtube-kana waqti baan siiyaa marka waa kaasee dadka fikradda qaldan oo aaminsan fikraddaas reerna waa yeelan kartaa xabiibtii teeda kaleente gurina waa ka shaqaysan kartaa youtube-na waa ka shaqeyn kartaa ciyaalkaadana waa u shaqeyn kartaa youtube-na waqti si ciyaalkaadana waqti si reerkaadana xaajigaadana waqti si daatisid inaa su-aasha fahanteena umalayna waa idin salaamaa saa u dhan tihiin fartuun cali asxaabteeda aad baan idin salaamayaa one love aan idin leeyahay بالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أنا أمها صنتها كوبين كفاح وكاجم هذه علنا سيد قروح بدن أو إيجال قيب قاعدة إلى قراء حيسو أتني جو قرأتين أسك باشال له فيديو جمحوها فيديو أسك باشال إس حق ورئيس مجرتو هرك بحنا واجرا ما فهمتين حق يلي يقول يرانين كوبين كفاح أنا أمها صنتها وقسلامة ولا شيء قالي أصحابتي قالي وحادنا باي باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اللي سكوتي على هاي المامنة